السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام الله ليال ميل بجوتين كسر هذا شيء وح كشرنا ملا كشرنا ملا هوان دمست هذا اللي مالودي ين ها تلوينكي أي نوضة يا رنتي جودن مر خريج صدرتي عدكم لكن سا أرادناي حد ما نسوه لي تلفونها كبارة مركا حدان هلي إلى دقيستا ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا سلام آد وقالئة. I'm very proud in هذا أنا وصون إلهي وحجعل يا أمدي سكوة أودها إله أنا وكوسو نقطة أدون كاغا أحي يا لا حول ولا قوة إلا بالله نبتصو ولا لو I've seen مركا داداني وكسو نقطة وحي حما قف أنسمين nobody is angel دون كان قف angel أمجر you have to know that كان عدان كان مركي نقضان every white guy حوغا كسلي ماذا مسوط أفريكان هادان مسيتي بتاكي ماذا they wanna in every guy who is dark skinned tradition كان أمليهن to do bad things. They try in a spoil garayan wilish esamea wahun wherever they can brainwash them ekusamea ma find. But adig wakaso noqote. And there's this you can use my voice. Secondly, there's this markam sajidka adisid adiga but you said status that's true سورة البقرة كجرت أقفك status حوليس وبحم status وح أسميه كمثل مسك وحكسو دعايا روب كمركو كدو أميش أو desert كا روب كدو أميل قلال محينو قناي تشمركو تتكا قاركو ساسو كنو قنايا دبك status but for you it's something you're gonna encourage others who wants to get out of that position aku jirto kale de wana you gonna help thousands and how many ajra helesa and how many you're gonna save their life and say hey if they did it I can do it anigana waxaan waa iska dhaafi karaa ilaahay waa usoo noqon karaa I would advise you حتى gabdhaha South Africa this gabdha South African are very beautiful hadda helesa mid gurso try it you can show them people show it it's gonna be motivation to others. There's a lot of guys or qalad laga gale or mistakenly mise qalad mise financial problem mise abusing problem waxaas u gale but they don't know how to get it out you show them hey I did it quruxdaada wallahi marka ya nabis adehisi salam alaykum yo snap ku jiro TikTok is very beautiful vision ka quruxdaada mashallah you're very handsome aniga mama ahay but you are very handsome you can get gabar hada South Africana or like or Muslim you can make her Muslim and you know how many ajr ahli qofka gabar hada Muslim sid oo gursated you know I know you said a lot of things but you are gonna be a motivator like hindi ya America kale nimanka jooga madowga marka drugs gagadaan waxa sameeyaa mise wax sameeyaa hadhoodii lagu dhaawaco they start to motivate people and meela looga wacda haya aniga waxa ku jiro iska dhaafay waxaaneeta lugteeda ku dhaawacantay iska dhaaf you know this and they inspire a lot of kids who are teenager or you know what I mean you're gonna inspire a lot of Somalians a lot of other even foreigners yeah I think we'll increase Swahili ina taqana I don't know but ina ku fiican tahay walaalo ilaahay waxa kaaga baryaa qalbadaada inuu ku dejiyo this world is just it's not big thing whoever has it who has little who has big waxaaga bismillah inaad dhahdid tukatid always weysada qabtid masaajidkaaga adoo galis adoo weysaysanid waxaas dhan soo duubtid which is going to give you a lot of views adigana and you're going to inspire a lot of kids I was this story of dhegeysanay Sheikh Saeed Saeed Raga I think in Madaho sheekhan oo dhahay cunugiriisa he wanted to be that people I will maskaxdiisa you know cadaanka markay macalin ku yihiin wax
school kasoo dhigatin. They just wanna ina maskaxdaad bedaan. Wiilka markii dambe wallahi uu la hadlay tartiib, he changed. So I wanna you adigoo weysasana, adigoo masaajidka aada, but Allah knows in aadan status u sameynayni. I like it the way aad aadani dadka iga mangala. I talk about myself and motivation. You're gonna inspire a lot of kids. Please walalo do that. Adigo masaajidka gala, adigo weysasanaay, waxaas dhan soo dub. And talk about past. You can talk about the Allah Ghafur Rahim way. You know, Allah wuxuu dhahay Ilaahay xataa Fircawn uu rabay in uu soo noqdo, but asaga ku dhiga adkaad. Yeah. Nobody's perfect. Nobody's perfect. You are very intelligent, handsome, very Ilaahay wuxuu u jeclaa adoonkiisa kii gafo oo soo noqdo. Ilaahay waxaa kaaga rajeynayaa nolosha easy inuu kaaga dhigo. Ilaahay inuu qalbadaada kuu dejiyo. Ilaahay inaa waxaa jecesho dhan ku siiyo. And go for it. Try. Hata Soomaalida hadday dhig siiyaan, you know, you can get a South African girl who are understanding. You know, these people of foreign, they understand gabdhahooda wax way fahmaan, ma fahan. And there's a lot of biyakugifin, there's a lot of gabdho hadda dibadaha jooga oo wax fahmaya, you know what I mean? Ayaka xataa intay xoogaa suuqa galeen, and then they want to get out of that. Inta sakaashagana, there's this guy hadda ka hor sheekadana jirto wallahi wiilko Saciid la dhaca Soomaaliya. This I was like, oh, cunugtaas gabadha markaas ana ku nugu diday jiru. Young, he was like, oh, you're so cute. And I was like, why are you saying that? Gabaraaba qabtaa markaasuu igu dhahay, come here. Gabadhaas gabaraan qabo ma ah. She's my relative u dhahay. Gabadhi, she came in magaalada Africa ka mid ah. Then when she came there, gabadhi dirisa ahayn. Actually, it was in Kenya. Marka gabadhi she did something without marriage. Malaqabin, something happened. Gabadhi, she was pregnant. But asagi, he stand up inu gabadhaas u ceeb asturo. U dhahay, oo gabadhaan anaa cunuga ka dhalay. He standed beside her. Hooyadeed iyo reerkooda wuxuu ku dhahay, gabadha, you know, ani ayada ismeeraxadna waa u dhalnay. Waa cunuga ayada ii dhashay. Secondly, yeah, you know, Ilaahay qofka toobad keeno, qofka qof Muslim oo ceeb asturo. It's something very good. Adiga, I want you to be the inspiration. This is historic ku noqoto. Take this opportunity to inspire those who were similar situation past like you. Aha, I did it. Hey, you can do it. I did it. You can do it. Masaajidka ku noqon kartaa, qofka xiga mala Ilaahay, qof masaajidka xiga mala. You just go and then look at it. Hata gabar wallahi South Africana, there's a lot of dudes who's also Somali oo qabana jiro South African, you know, marime gabar yaro iska heshid. I know gabadhi markii inaa la agti garanaysa ay Google ka soo saaray, she has her on YouTube, but in gabar heshid oo very quiet or like decent xooga lifekeeda ka jaban, you know, lives on countryside oo kale oo wax bahaysan, you know, oo isla noolaatiin nolosha isla fahantid ayadana ku fahanto. Ilaahay ha ku sahlo. Mise gabar kale Soomaali, you know, who was in America, meelaan Europe ka joogta ayadana, you know, she's failing in a isbedesho. Walalo, I wish you all the best. Inspire people. Show them Sajidka adigoo socotid. Show them this. You are amazing. And you have to know, wallahi, boqol nina ka qurux badanta oo Soomaaliya. Soomaali nimankoodana way dhamaadeen, wax dagaal ku dhamaaday. Yeah. Is wax jaad afka ka dhamay. You don't have other balwad, and nobody is perfect. Nobody. Ilaahay qof naga xiga malaha. Ilaahay Ghafur Rahim wa Salatul Layl tuko. You're gonna get with Salatul Layl a lot of things are kweli karta. A lot of things. Ilaahay ha ku fududeeyo. Show them, inspire. Wallahi, you're gonna see channel kaga inte ade. You're gonna make out of a lot of views, and you're gonna show them, hey, I changed. You waxa laga yaabaa inaa qof ka soo saarto meel intaad ajir yaa helaa adiga. Ajirkaas adaa helaysid. Khayra ku rajeynaya deeq. I'm sorry, I didn't know hada waxa u maleynay wadamadan oo kale voicemail inuu go'aanayno xasuusta. Oh, I can leave a message. I really
pray for you ilaahay qalbigaaga inuu kuu dejiyo ilaahay inuu paadka fiican kuga aadiyo ilaahay inuu ummadda kuu cabiidiyo ilaahay you can do that with reading Quran and being close to Allah. Ilaha ku fuday walaalo ilaha ku caafiya ilaha ku ziyaadiyo iimaankaaga iyo toobadkeenka ilaahay waa qafuurur rahiim ya ilaah wuxuu jecel adduunkiisa kii casiyo oo soo noqdo ya diinta ma ka bixin dada diinta inta ka baxan soo noqdaan oo ilaahay caafinaya of course ilaahay wuxuu dhaha doomadeeda ad'uuni astajibu lakum wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalaamu calaykum waa kugu dheeraaday hadalkayga. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لو yaa sheekadana laamay jirto wallahi wiilko Saciid وبركاته. dadkii waa isku dardarsan waan goyn karaa laakase iska dhaafo adiga waa message ayaan u dhaafay ayaan iska play garay whatsappka waad garanaysaa moogtahay kaan islaam walaalayaal till next time bye